nin lagu magacaabo Ted Todres wuxuu lahaa macalin markuu yaraa ilmo yar ahaa. macalimadaasi waxay u dhigi jirtay fasalka 5aad. wuxuu ahaa ardayda wuxuu ahaa midka ugu liita. waa mid aanan faraxsanayn, ma arkaysi asagoo wax qora, waajibkiisa si fiican ma soo guto, waajibka loo diro oo macalimada u dirto kama soo baxo, ma soo guto. waa mid caajislow ah, ardayda lama faraxsano, lama cayaaro. waa mid keligiisa un meel taagan, keligiisa un meel fadhiya. macalimadu aad bay u necbeyd, waayo imtixaanka kuma baaso, natiijooyin wuxuu keenaa aan fiicnayn mar walba. wuxuu yahay ardayda midka ugu dambeeya. saas daraadeeda maalin ayay waxay ku tiri macalimadii iyadoo la hadlaysa ardayda, waxay ku tiri waa idin jeclahay dhammaantiin, balse qalbigeeda waxaa ku jira waxaan ka ahayn Ted, waa idin jeclahay idinkoo dhan. ayay hoos iska uma muujinin, balse sidaas ay hoos iska tiri. waxay tiri qalbigayga waan jeclaa carruurta oo dhan, balse waxaan ka ahayn unugaas Tedkaas waxaan ka ahayn. meeshaas ay ka gaarsiisnayd oo mar walba marka ay hataa ay u saxiixayso waraaqaha imtixaanka oo uu keeno eber, way ku raaxaysan jirtay inay u saarto efta weyn. maalin waxaa loo keenay dukumentiyo ka hadlaya ardayda maaragtay fasalkaasi dhiganaya, ardayda fasalkeeda dhiganaya, oo ka sheekeynaya fasaladoodii hore iyo siday ahaan jireen. waxay bilowday inay akhriso ardaydii, laakiin Ted waxay ka dhigtay midka ugu dambeeya akhriso, waayo maba jeclaynba cunugan. kadib markay soo gaartay ayaa waxay akhrisay taariikhdii waxbarasho ilaa iyo fasalka 5aad ee Ted. macalinkii fasalka 1aad u dhigi jiray ayaa taqriirku ka qoray waxay ahayd, wuxuu yiri Ted waa ilmo aada u fiican oo aada u caqli badan, oona aada iyo aad u firfircoon. way rumaysan weysay, ma wuxuu ka hadlayaa Ted kan mise wuxuu ka hadlayaa Ted kale? waa asaga. haddana fasalkii 2aad macalinka u dhigaya wuxuu yiri Ted waa mid aada iyo aad dadka u jecel, oo hadal badan, oo maaragtay oo dadka la sheekaysta, oo dadka dhexgal badan. waxay tiri see wax u jiraan. kii fasalka 3aad u dhigayay, macalinka fasalka 3aad u dhigaya Ted wuxuu asagana ka qoray inuu yahay Ted arday aad u fiican, balse la kulmay murug weyn kadib markii ay hooyadiisa dhimatay. midaasna ka dhigtay inuu arrintaasi uu ku walbahaaro. wuxuu isku dayayaa inuu maaragtay ka hortago murugtaasi si uu usii wato waxbarashadiisa, balse weli waxaa haysa oo weli ku qufulan oo maskaxdiisa ka buuxda murugtii hooyadiisa. macalinkii 4aad fasalka 4aad u dhigay isagana wuxuu yiri Ted waa mid damiina. fiirsay isku bedelayaan taariikhdiisa. Ted waa mid damiina. macalimadii markay akhrisay hadda ayay garatay mushkiladda meesha taagan. waxay ogaatay cunugan yar in mushkilada ay tahay sabab u tahay dhimashadii hooyadiisa, inuu yahay cunugan cunug maaragtay murugsan oo walbahaarsan, oona helin garab qof ku siiya oo si garab istaaga si uu waxbarashadiisa usii wato, uuna u iloobo murugtaasi oo u waayo hooyadiisa. kadib waxay nacday nafsadeeda. waxay tiri anigana wiil sidaana oo maaragtay hooyadiisa daraadeeda u murugsanaa ayaa anigana waxaan ula dhaqmi jiray sida aan fiicnayn. ayaa waxaan dhihi jiray, waan leedi jiray, waan dhihi jiray waxba ma tihid, waan mar walba aanan hadal fiican ku dhihi jirin. waxay ballan ku martay in maanta laga bilaabo ay garab istaagto Ted oo ay dhiirogeliso si uu u noqdo qof wax soo saar leh, si uu hadda u noqdo arday aada u fiican. maalintaas waxay laga bilaabay, waxay bilowday inay mar walba ku tiraahdo hadalo wanaagsan, inay ammaanto, inay ku tiraahdo arday fiican ayaa taadiga, si fiican ayaa wax u qoraysaa, sii wad, inay sii dhiirogeliso, inay sii ammaanto. 6 bilood kadib wuxuu noqday Ted fasalka ardayda ugu sareysa ayuu ka mid noqday, wuxuuna keenay natiijooyin aada iyo aada u sareeya. waxaa isbedelay dhiirigelinta. hadda wuxuu helay dhiirigelin, hadda wuxuu helay qof ku yiraahda, qof u sheega meelaha uu ku fiican yahay, qof dhiirogeliya. soo ma jeedid? annagu dhan waxaynu u baahannahay qofna dhiirogeliya oona tusa marmar meelaha aynan markaasi u jeedin. kadib Ted
wuxuu kasii gudbay fasaladii wuxuu kasii gudbay fasalkii shanaad, fasalkii lixaad, ilaa iyo waxbarashadii ayuu sii watay. sanado kadib waxaa u timid warqad macalimadii. warqadiina waxaa ku qorneyd Ted ayaa usoo diray warqadii, wuxuuna ku yiri macalimadeeda aada ayaa u mahadsan tahay, runtii waxaa tahay macalimad intii aan adduunka macalimad aan la kulmay macalimadii ugu fiicneed aan weligeyga arko, aada ayaad u mahadsan tahay. sanado kadib Ted wuxuu dhameeyey jaamacaddii, wuxuu noqday doctor weyn ayuu noqday. kadibna wuxuu usoo diray haddana warqad kale, wuxuuna ku yiri macalimadeeda aada ayaa u mahadsan tahay, waxaa tahay macalimadii ugu fiicneed aan webidkeyga la kulmo, waxaa tahay macalimadii ugu fiicneed aan weligeyga arko. haa, macalimiin badan waan la kulmay gadaashaada, balse weligeyga mala kulmaayo, mana laga yaabo inaan la kulmo macalimad adiga oo kale ah. sanado kale kadib warqad kale ayaa u timid macalimadii oo uga timid Ted, wuxuuna ku yiri macalimadeyday waxaan la kulmay noloshayda barkeedii kale, waxaan doonayaa inaan guursado. saas daraaddeeda waxaa sharaf ii ah haddii aad ii timaadid xafladaasi arooska oo ad igala soo qayb gashid, aada ayaan u jeclahay. macalimadii waxay tiri waxay ii tahay midaasi sharaf aada u weyn. way baxday, waxayna aaday arooskii. Tedna wuxuu u diyaariyey boos iyada gaar ah, booskii ugu talagalay hooyadiisa inuu ku fadhiisiiyo haddii ay noolaan lahayd. meesha ayuu fadhiisiyey, booskii hooyo ayuu fadhiisiyey macalimadiisii. kadibna wuxuu dadka u sheegay inay tahay macalimadii noloshiisa oo dhan bedeshay, macalimada ka dhigtay maanta meesha uu joogo, heerka uu gaarsan yahay maanta macalimadii gaarsiisay inay tahay. ayadana waxay ku tiri maya Ted, adiga ayaa noloshayda bedelay, adiga ayaa iga dhigay inaan noqdo macalimad fiican. markii hore ma ahaan jirin sidaas, balse markii aan akhriyay taariikhdaada ayaa anigana noloshayda oo dhan adiga ayaa bedelay noloshayda, adiga ayaa iga dhigay inaan noqdo macalimadaan ahay maanta. sheekada Ted oo runtii dhab ah, sheeko dhab u dhacday ah, oo ahna doctor caan ah oo aada naajix u ah, waxayna dareensiinaysaa qiimaha ay leedahay in qofka la dhiirogeliyo, in qofka loo sheego meelaha uu ku fiican yahay, halkii aynu mar walba qofka ku dhihi lahayn saas waxaas ma ficneed, waxaas meelaha aan ficnaan goor mar walba, halkii aynu mar walba tilmaami lahayn, halkii aynu mar walba wax ka sheegi lahayn meelaha aan ficnayn, aynu dadku sidaas ku moraal jebin lahayn. sooma fiicna inaynu hadda kadib fiirino dhinaca wanaagsan oo keliya, waayo ma jiro qof aanan lahayn meel aan ficnayn. dhammaanteena waynu qaldanaa, maxaynu mar walba u buunbuuninaa, waanu korka ugu qaadnaa waxyaabaha qaladka ah. ma jiraa qof aanan qaldan, anagoo dhan waan qaldanaa. haddaba bani aadam dhan wuu qalda. maadaama ay sidaas tahay, haddaba aynu dadku ku ammaano meelaha ay ku fiican yihiin, ku dhiiragelino meelaha ay ku fiican yihiin, si hore ugu sii socdaan. ma jirto maanta wax inooga baahan anaga Soomaali haddaynu nahay, dad sidaasi isu garab istaaga, dad sidaasi isku dhiirageliya, si dhammaanteena qof walba meeshuu ku fiican yahay uga soo baxo, qof walba booskiisa uga soo baxo. markaas oo keliya waxaanu noqonaynaa dad wadankooda gaarsiiya dunida dacaladeeda. aada yaa u mahadsan tahay. asalaamu calaykum.